maanta waxa ay dadweynaha Kenyaanku ay u dareereen doorashada guud ee 5 sanaba mar la qabto taasi oo lagu doorto qofkii madaxweyne ka noqon lahaa wadanka Kenya. dadweynahan idin muuqda waxay joogaan tuulada Bultabanta oo ka tirsan degmada Pangal ee countiga Tana River oo codkooda dhiibanaya kuwaasi oo qaarkood ay ka kala yimaadeen magaalooyinka waaweyn sida Nairobi, Mombasa, Garissa iyo waliba meelo kale ama goobo kale oo ka fofog. mid ka mid ah culimada magaalada Bangal ayaa uga warbixiyay warbaahinta Asal goobaha laga codeeyay iyo dadka loo codeeyay. jawiga wanaagsan alla bari cidab nabadgeliya maanka la sugo dadka lagu istaagin hawlihii oo la kala fuliyo sida ay hadoo fuliyo qof walba aan wixiisa laga dulmin xaq u lahaa. waa gartay waka markaa inta meelood laga codeynaya waxaa laga codeynayaa 4 laamigay ku taala haye saddexna waxay ku taala todobada meel baa laga codeey todobada meel xaabisan Hargeysa waa laga codeen Bangal waa laga codeen Bultobanta village waa laga codeen meesha la yiraahdo waxa laga codeynay Bookwe waxa laga codeynay meesha la yiraahdo Kamaguru meesha Elhar la yiraahdo laga codeen meesha Dhuxusha la yiraahdo laga codeen todobada meel baa laga codeen waa todoba waxa weeye goobood todoba marka meesha laga xukumana waa Bangal Primary School Bangal area waa todobada meel waa gartay waa marka hadda way bilaabayeen 12 inaan bilaawno dawladda 12 ay xukuntay iyadana in la xiro dhag la siiyo waa 6 subaxnimo 6 galab 12 la xiro 6 maqribnimo la xiro waka amaankana la sugo. sidoo kale mid ka mid ah nabadoonnada magaalada Bangal ayaa isaguna ka warbixiyay dhibaatooyinka ka haysta deegaanka wuxuuna raaciyay in codeyntiisa uu ku bedelo dhibaatooyinka ragaadiyay deegaanka. aniga Cabdullaahi Saalax Cabdi Baali yiraahdaa waxaan ku noolahay magaalada Bangal muddo waxaan ku noolahay 42 sanadood ah run ahaantii haddii aan ka warramo dhibaatooyinka Bangal annaga nagu haysato waa dhibaatooyin aad u xoog badan noloshu waa biyo naflay oo dhan noloshooda waa biyo annaga ilaa saacadan ilaa si Kenya uhuru u qaadatay iyo joogan wax biyo on haysano ma jiro halkii caaga ahaa waxaan gadanaa 40 shilin ilaa 50 shilin gaariyaal maxaan ku raadin watabuusa oo ka imaadaan Garissa ayaa biyaha noo keenaan gaariga 10 lugoodka ah gaariga wuxuu noogu keenaa ilaa 24 kun oo shilin oo Kenya ah dibaatada horta wayna haysataa waxa aan dooranno oo aan rabnay inaan wax kala kulanno oo dheef kala kulanno oo dawladda iyaga ayaan u doorannay inay maxaan ku raahdaa nolosheena ay ilaaliyaan ilaahay baa wax ilaalin karaa wax nolol on ku haysanno ilaa waqtiga iyo joogan doorasho la bilaabay oo nolol on ku haysanno ma jiro. bal magaalada sidee loo kala degan yahay Soomaalida iyo Kenyaanka magaalada waa migis qabiil aan deganeyn ma jiro qabiil Soomaali oo aan deganeyn oo ka maqan ma jiro qabiil madow oo aan deganeyn oo ka maqanna waa yaryah magaalada saas horta migis u taayay isu dhex yaala oo loo degan yahay waayahay marka hadaba aynu ka hadlayno nolosha waxa sheegtay biyaha ku yar korontada maxay kaga dhacay korontada ayada horta intii muddo un hadda maxaan ku iraahdaa maxaan ku sanad maan ku dhawaayaan horta koronto haysanaa yaan koronto yaan haysanaa korontadana waa koronto un marna dhinaca dami marna dhinac daaran marna dhinac ay laga wayni marna dhinac baa laga heli koronto rasmi oo hadda on toos loo helo oo ma aan u isticmaalno ma jiro aad bay daciif u tahay marka hadda wixii kale Kenyaanka kale ma la qabnaa oo sixir bararka iyo abaarahan iyo waxan waa Kenyaanka kale ma la qabnaa aniga waxaan ka codeeyaa iskuulka Bangal Primary halkaasaan joogay oo hadda ka soo codeeyay hadda waxaan joognaa Bulabanta isla markaana waxaan hadda ka codeynaa qiimaha markaasi dadka hadda bilowdeen hadda waxaan qorayaa buuggii markaasi diiwaangelinta markaas sheegay in aan sameeyno. haddaba markaan intaasi kaga gudubno codeyaasha aan idin horgeeyo loo codeeyaha ama musharaxiinta u taagan xilka MCA Cabdirasaaq Indugu ayaa ka waramaya rajada uu ka qabo doorashada iyo dareenkiisa ku aadan maalinta murugada leh. waayahay dadku ku codeynayo waxaan ku baaqaysaa dadku waqtiga badan ii soo qaaday
horreysay miyaa mise waa markii county la soo shaqeeyay county government waa markii ugu horreysay wallahi waxay sameeyeen in oo tartan gali oo ku dhigay wax waa iga sii Wala. wuxuu ku leeyahay oo soo galay maanta kuwi man kamid ahay natiijada rajaynayna natiijada fiican aan rajaynaa goorma natiijada soo baxaysa asnaada ilaahay kariim meesha lagu gaaro caaw waqtigan caaw 3 saac 5 saac 6 saac wala awoodaa in la soo saaro wala awoodaa in la soo saaro midaan teen waa iska tuyar waa 13 polling stations waay goobaha codbixinta ayaa la furay 6dii subaxnimo waxaana la soo xiray 6dii maqribnimo labada musharax ee ku hardamaya xilka madaxweynenimo ayaa kala ah Raila Amolo Odinga iyo William Samoei Ruto waxaana la tartamaya laba kale oo musharax oo iyagu rajadoodu aan saa u buurayn xilkan madaxweynenimo waxaa laba mar oo hore ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta oo isagu haatan ka sii degayaan waxaa xusid mudan in doorashadu 2 cisho ay ka harsan tahay la bedelay taliyihii ciidamada daawada haddii aad ka heshay muuqaalkan gaaban fadlan rukuma channelka si aad u hesho warbixinaha kale mahadsanid